السلام عليكم سدودا صاحبيال marka laga hadlayo internetka iyo computer networkska waxaa jiro laba shay oo muhiim ah oo lagu cabiro wax qabadka networka waxaan la yiraahdaa latency iyo throughput aan si fudud fahanno farqiga u dhaxeeya latency waa waqtiga ay qaadato in xogta ugu safarto hal meel ilaa meel kale ama serverka ugu jawaabo codsigaaga tusaale ahaan haddii soo qaadano marka aad ciyaarayso online gaming haddii aad gujiso ama taabato button oo jawaabtu timaado 20 millisecond gudahooda kadib latency waa 20 millisecond weeyaan latency wuxuu la mid yahay marka jawaab degdeg ah latency hoose marka haddii aan fiirno wuxuu muhiim u yahay sida waxa weeyaan online gamingka ama gamingka online lagu ciyaaro iyo video callada iyo real time communicationka ayuu muhiim yahay throughput waa marka xaddiga xogta shabakadu si dhab ah u gudbin karto marka muddo cayiman waxaa lagu cabiraa marka sida mbps iyo gbps tusaale ahaan haddii shabakadaadu dhab ah u gudbinayso 100 mbps taasi waa throughput sare wuxuu la mid yahay marka xog badan ayaa waqti yar lagu gudbin karaa tusaale fudud haddaas oo qaadan bal qiyaas wado weyn latency-ga waa waqtiga uu gaariga ku gaarayo meesha uu u socdo throughput wuxuu noqonayaa waa tirada baabuurta wadada awoodo inay gudbiso marka hal saac gudaheeda sidaas darteeda marka xasuuso latency waxay la mid tahay marka ay qaadatay xogtaasi yani inay systemka marto kuna soo laabato throughput marka wuxuu la mid yahay intee xog ah ayaa la gudbiyay labadooduba marka waxay muhiim u yihiin in la fahmo xawaaraha iyo waxqabadka shabakada